waxaynu isu sheegi doonaa in sha allahu tacaala iyadoo xasuusina xowla aaya min kitaab illah. ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaa laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswaة xasana liman kana yarju اllaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira. aayadatan oo suurat اlaxzaab ka mid ah. axzaabna waa qur-aankii ku soo degay wakhtiyadii nebiga ugu adkaa calayhi الsalaatu wasalaam, oo dagaalkii gaal oo dham isu kaalmaysatay, hadday tahay quraysh, khatafaan, acraabtii kale, yahuud, mushrikiin iyo yahuudiya cid waliba nebiga isugu timi calayhi الsalaatu wasalaam la ysu bahaystay, oo iyadoo laga yaabo dadka madiine degan oo dhami 3,000 oo qof inaanay ka badnayn xawaaley, ciidamo 10,000 oo qof isoo dul degeen, oo ilaahay khaswada markuu sifeynaya uu ku tilmaamayo in kor iyo hoosba lagaga yimid oo zilzaal inuu ku dhacay, ayaa ilaahay dadka muslimiinta wuxuu ku leeyay laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana. allaam ilmuwaطa lilqasam iyo xarfu taxqiiq qad ah ayaa ilaahay isku daray. ilaahay baa dhaaranaya subxaanaه wa tacaala oo leh allaan ku dhaartee qad kaana lakum, xaqiiqo waxaa ah inuu nebi maxamed idinku sugan yahay uswatun xasana, ku dayasho fiican. ilaahay wuxuu yihi fii rasuuli illaahi, darfigu waa nebiga oo dhan calayhi الsalaatu wasalaam. yacni marka la yidhahdo fii rasuuli illaah meel gaara lama tilmaamay, fii aqwaali wa axwaali wa afcaali, nebiga dhammaantii baa idinku sugan tahay. ishiisa hadday tay, dhegtiisa hadday tay, gacantiisa hadday tay, lugtiisa hadday tay, nebiga dhammaantii ama axwaashiisa oo dhan. uu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam aab buu noqday, oday reer buu noqday, qaaduu noqday, imaam buu noqday, nebiyo rasuul buu ahaayo u dheeraa, qaa'id caskariyuu noqday. waxa qof bini aadami shaqo qabto oo dhan buu qabto. dabeetana ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa fii rasuuli اllaah, ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan uswatun aw iswatun, qiraa'ataani sabciyataan, ku dayasho, ku dayashadaasoo xasana, ku dayasho wanaagsan. waxay culammadu yidhahdaan ma ahlulcilmigu ku dayashada nebigu waa amrun muطaridun caam, waa qaacida aan istihnaaba lahayn. inta badan nolosha nebiga oo dhan baa ah mid lagu daydo. qof kasta oo muslima baa helaya meeluu kaga daydo. waa dhan kale haddaynu culumta basharka xataa eegno waxay idhaahdaan alkamaalu, dhammaystiranku ama cadamadu ama weynidu waa wax bini aadamku jeceliya uu ku daydo, xataa nolosha caadiga ah. xataa waxa aada cadiimka ku tahay haddaanu wax qiimo badan lahayn, bini aadamku cadamadu iska jeceliya. laga yaabo inaad aragto mid kubadda cagta ku fiican oo dadka o dhami daba raxlaynayaan. waxa uu ku fiican yahay waa kubad, ma aha nolosha wax qiimo ku leh. sidaan hore u tilmaamnay haraggaa yare la buufiyey waa nolosha qiimo ku lahayn. idan cadamadu, qofku hadduu waxun ku weynaado, waxun uu magac iyo maamuus ku helo, aadanuhu wuu jeceliyay inuu daba socdo. famaa baaluka bisayidi اlbashar, maxaad u malaynaysaa rasuulkii ilaahay doortay ee bini aadamka o dhan sayidkiisa ahaa, oo rabbi uu ku tilmaamayo wainaka la calىa khuluqin cadiim, oo rabbi uu ku tilmaamayo wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin, raxmat اlmuhdaa.
ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala kumaanan soo dirinba inaad tahay naxariis adduunka aan ugu naxariistay mooyaane. idan kamaalkii bini aadam uu gaari lahaay oo dhan nebile baa ilaahay wuxuu ina leeyahay ku dayda. maxaa lagaga dayanayaa? wax yar iyo wax weynba waa lagaga dayanaya. cibaadaa lagaga dayanaya, sida rabbi loo weyneeyaabaa lagaga dayanaya. tadbiirka ummadeed saa dad loo maamulaa lagaga dayanaya. siyaasad iyo hogaamin baa lagaga dayanaya. xikmad iyo aftahanimaa lagaga dayanaya. qaadinimo iyo xukun baa lagaga dayanaya. aabbanimo iyo zawjnimaa lagaga dayanaya. taajirnimo iyo baayac mushtar baa lagaga dayanaya. wax kasta oo nolosha ay u baahan tahay, in every aspect, wax kasta oo nolosha ka mid a ayaa lagaga dayanaya. ilaahayna wuxuu tilmaamayay nebiga la yidhi wa anna hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu subal. ku dayashada bini aadamku wax ku daydaa, ku dayasho fiican iyo ku dayasho sayi-aba way leedahay. cid waxa fiican lagaga daydo iyo cid waxa cun ku caanbaxdo lagaga daydo. tan ilaahay wuxuu yihi waa uswatun xasana. qur-aankana qaar buu ilaahay inoogu tilmaamay yaqdumu qowmu fircawn isagoo dad hogaaminayo horseedaya oo horkacaya inuu aakhiro iman doono. bale suuraddaynu maalin walba akhrino ayaa ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala laba jid oo midna lagu dayanayo midna aan lagu dayanaynin. midna aynu ilaahay weydiisanayno in ilaahay ina mariyo siraata aladiina ancamta calayhim. jidna laynoo tilmaamay inaynu ilaahay ka magan galno oo gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin. jidka kuwa lumay iyo kuwa rabbi uu cadhaysan yahayba. maanta adduunku xaala xarija buu ku taagan yahay, critical point. waayo waxaa lumay qiyaadaadkii bini aadamkee lagu dayan jiray. adduunka mashaakil badan baa ka taagan, dhan kasta oo laga ego. mashaakil siyaasiya dunida ka taagan, mashaakil dhaqaalaa ka taagan, mashaakil caafimaad baa ka taagan, noloshoo dhan baa qasan. duniduna way weyday qiyaada, dad marmuuqoo la dabagalo way weyday. ilaahayna waa itixaamay, imtixaanaadkaasoo loogu talagalay lacallahum yarjicuun, lacallahum yatadaracuun. bal bini aadamku marka la gelgelo ina inuu rabbigii u noqdo ama ina inuu isu dhul dhigo. dadkii muslimiinta ahaa markii la yidhi rabbigii ku dayde ee saxaabadii nebi maxamed aha waa ku daydeen. kuwii ka soo horjeestayna way diideen uswada xasanka ah ee gaaloobay. oo maxay qaateen? waxay dhahaan dhaqamadayada iyo aabbayaashaya wixii ay ahaayeen, ina wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa ina calaa aahaarihim muhtaduun. aabbayaashayaan ugu nimi oo dhaqan iyo hiddo iyo qaab u nool, kaas baanu raacaynaa. ilaa alla ka leeyahay awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun. aabbayaasha miyaa la yskaga dayanayaa haddaanay maan qabinba, haddaanay waxay samaynayaan wax maangalaba ahayn, ama aanay ariiq hanuunsan maraynin maa lagu dayanaya? waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah wa ila arasuul qaluu xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shay-an walaa yahtaduun. kuwa quraysheed waxay lahaayeen aabbayaashii aan ku dayanayna. ka waran kuwa yidhaahdaa aabbana ku dayan maynee gaalada yadaan ku dayanayna. kaasi aabbaabuu haystay abtirsiin uu lahaa waan ku dayanaya. amaa muslim badan oo maanta jooga waxay leeyihiin inaa wajadnaa kufaarana calaa ummatin wa inaa calaa aahaarihim muqtaduun. gaalada yadaanu aragnay oo waddo ku socota, annana gaalada waddadeedaanu qaadaynaa. waxaa aada u cajaba
marka la yidhaahdo nebiga ha lagu daydo calayhi salaatu wasalaam, muslimka maanta joogaa wuxuu ka fakeraa ee ugu badan haddiiba uu is idhaahdo ku dayo cibaadada iyo meelaha salaada iyo intaa in lagaga daydo. amaa wixii intaa ka baxsan, haddii la yidhahdo tijaarada ha lagaga daydo, maya waa arrimaha dhaqaalaha iyo diinta isku qasin baa la leeyahay. dunida maanta joogtaa interest la-aan iyo ribo la-aan socon mayso. saa daraaddeed ina calaa kufaarina muqtaduunkay taagan yihin. haddii la yidhaahdo siyaasadda kaga dayda ama dhaqaale kaga dayda, iyadoo weliba gaalka ay sheegayaan uu qirayo taariikhda aadanaha ciddii waktigii ugu koobnayd noloshoo dhan ku guulaysatay inay muslimuun yihiin. weliba raggaa ku guulaystay ee dunida hoggaamiyey may ahayn taariikh hore iyo cilmi hore dad leh. saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii dowladoodee waaweynaaye hareeraha ka xigay midna may ahayn. waxay ahayn dad dhul saxaaro a degan oo fawdo ah, waan dowlad iyo nidaam iyo kala dambeyni ka jirin, oo ninkii qofkii la boobi karo la boobo, kii la dili karana la dilo. haddana dadkii caynkaa ahaa markay nebi maxamed ku daydeen calayhi salaatu wasalaam, wakti aada u kooban bay nolosha ku hoggaamiyeen. gaalla martin la yidhahdaa wuxuu yihi waxa bini aadamku wax ku qiyaasa haddaynu ku eegno waa ciddii buu leeyahay ku guulaysatay smallness of means, yacni waxa uu hante ee facility ama dhaqaale ama awood ama ciidan ama dadku haystee ugu yaraa, haddana nolosha maximum ka gaadhay buu leeyahay, halka ugu sarraysa gaadhay. ma jira buu leeyahay cid intii uu haystay in leeg haysato isbeddelka intaa leeg samaysa. waa marka lagu xisaabtamayo noloshan maadiyaadka ah. idan haddii tajribo la rabo, nidaam la tajribeeyey, islaamku iyo saxaabadii way tajribeeyeen. waa nidaam saxa oo dadkii ku dayday ee horu mareen, nolosha tan aynu ku nool lahay ee ku horu mareen, ta aakhirana in shaa allahu dadka ay ugu horeeya noqon doonaan. sawgeed baa ilaahay ummadda wuxuu ku leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixeyn ku yaalla wuxuu ku tilmaamay, muslimiinta isagoo la hadlayay buu wuxuu tilmaamay latattabicunna sanana man kaana qablakum, sanana man qablakum. caadaadkii iyo dhaqamadii iyo manaahijtii iyo qaabkii ay raaci jireen dad kaloo idinka idinku horreeyey baad raaci doontaa, taaka taaka iyo dhudhudhudhul. xataa hadday galaan buu nebigu ku tilmaamay xadiidka god masalugalay, masalugalay ama masacgalay waxaad tidhaahdaba, godkeed hadday galaan waa ka dabageli doontaa. waxay dhahan yaa rasuula allahi alyahuuda waannasaara, ma yahuud iyo nasaaraanu raacayna? qaala faman. xadiid kalena waxay yidhaahdeen alruumu waalfurus, qaala faman. yahuud iyo nasaara miyaa la raacaya oo yaa kale buu nebigu yidhi. room iyo bershiyanka miyaa la raacaya oo yaa kale buu nebigu yidhi. shuraax ilxadiid waxay yidhaahdaan marka laga warramayo daa-u tadayunna, dadka diintu inay khalkhal ka gashana waa alyahuudu wanasaara. marka lagaga warramayo bay yidhahdaan maamul iyo boqortooyaa caynkanna waa alruum waalfurus bay yidhahdaan. labada goore nebigu mid walba leeyay faman, yaa kale. maanta waxaad moodaa yaa kaladii uu nebigu sheegay inay taagan tahay, oo marka muslimiinta iyo dhaqankooda la eego ilaahay qur-aanka daa-u ahlulkitaab wuxuu inoogu tilmaamaya wama اkhtalafa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi ma jaaءathum, ismay khilaafin kadib intii bayinadu u timi mooyaane, bagyan baynahum baa ilaahay yidhi.
iyagoo isku xadgudbaya xaasidnimo iyo baqyi daraaddeed. waa daa-u tadayun. dadku iyadoo diinta ay waadixtay haddana inuu murmo uno ishayo oo iskhilaafo. ama daa-u tadayunka ay qabaane qur-aanku uu sheegay waxaa ka mid ah atataruf. ambiyadoodii intay ku xadgudbeen inay yidhaahdeen waaba ilaahiyo. haddii la eego dhan maamul iyo wixii la midana daagalkani ama xanuunkani wuu yaallaa. aadanuhu sidiisaba ku dayasho kaba maalmo ma aha qof cidlo joogi kara. walidalik ba xataa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ilahay wuxuu yihi kuwaa ku dayo. ulaaئika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi. inta ilaahay ambiye iyo rusul ka soo warramay baa rabbi wuxuu ku yidhi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam kuwaasi waa kuwii ilaahay hanuuniyey ee fabihudaahu muqtadi. iyaga hanuunkooda ku daya baa ilahay yihi subxaana wa tacaala. culammadu waxay idhaahdaan marka aadam iyo xawo laga reebo inta kale ciday ku dayataa loo yeelo. aadam iyo xawana iyagaa tajribada la geliyey. iyagu cid ka horreyso ay ku daydaan may haysanin. iyagaa tajribo la geliyey oo la yidhi jannadoo dham waa idiin fasaxantay geedkaa iyo indaa mooyaane ha samaynina. kadib bay sameeyeen. kadib bay arkeen xumaha ciqaabtiisu waxay ka tahay. kadib baa ilaahay yidhi haddaba dhulka taga. ilaan marka horeba dhulkaa loogu talagalay innii jaacilun qur-aanka waa ka ilaahay ku tilmaamaya in loo yeeli doono dhulka in loo yeeli doono khaliifa. laakiin dhulka intaanu iman baa lasoo tababaray. amaa dadka wixii ka soo hadha iyaga qudwo kama maarmaan. qudwaa loo sameeyey. waa ambiyadii, waa rusushii, waa saalixiintii. dadkaa in lagu daydo. waayo ku dayashadu kow aadanu kama maarmo almithaali alxay, tusaale nool. waa ilaa diintu iyadoo kutubunbaa la keeni lahaa haddii kale. waxay yidhaahdaan qoladan xataa galbeedka ka waranta fikrad aan cid lahayni ma socota bay yidhaahdaan. fikrad aan model lahayn cidda lagu arko oo ku dhaqmayso oo lagaga daydaan lahayn ma socoto. walidalik diinta maanta o dhan haddaad wacdi ka dhigato socon mayso. laakiin markay noqoto dad ku dhaqmaya la arko, model ay yeelato, wax la raaci karaa ay muuqdaan. maanta waxaan odhan karnaa afcaasha muslimiinta ayaa in diinta la qaato hortaagan. dhaqanka muslimkaa hortaagan. waayo inaad tidhaahdo diintu way fiicantee ku dhaqma gaaloy, anigu se ku dhaqmi maayo waan haddana rumaysanay, dee wax bini aadam yeela ma aha. yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun ba ilaahay. waxaynu odhan karnaa inay diintu socoto waxa hortaagani waa dhaqanka muslimka. low intiina halkan joogta ahaan lahaydeen dad aan been sheegin oo wax khiyaamaynin oo tijaaradoodu quman tahay oo diintooda si dhaba ugu dhaqmaya, cidda idin ag joogtaa idinkoo aan u yeedhin bay islaami lahaayeen. cidda idina joogtaa idinkoo aan afka ka hadal ayay islaami lahaayeen. waayo afkaartu bay yidhaahdaan kama maaranto mithaal xayiya, tusaale nool oo lagu daydo. waa mar labaadee tusaalaha lagu daydaa wuxuu sheegaa waxaan inaanu mithaali ahayn. mithaaliga waxaa la yidhaha ideal, wax maskaxdu qurxisay laakiin nolosha aan ka suurtagal ahayn. waayo haddii la arko qof quman ugu dhaqmaya wuxuu tusaale u yahay in waxaan yihiin wax la practice garayn karo. in nolosha caadigaa lagu practice garayn karay tilmaamaysa, mumkin inay tahay in lagu dhaqmo. dadka atbaacda ahina hadday qaadadu qaadato mabaadida sinaba ugu dhaqanto, nadra daqiiqa bay yeeshaan, ay u fiirsadaan dhaqamadoodu intay leegihin. walidalik caamada waxa laga yaabaa in badan inaad aragto iyagoo idhaha wadaadaduba saasa yeelaan. yacni wadaadka waxaa la xisaabinaya isaga
wax kasta waayo qudwa oo laga rajaynaya inuu dadka waxay ku daydaan noqdaa baa laga rajaynaya sida ogeed wax kasta uu sameeyo waa loo fiirsanaya u fiirsan nebi maxamed siday ugu dayanayeen saxaabada salaad buu galay xadiidka abi daawud warinaya salaad buu nebigu galay masaajidkii nebigu sida kuweena kan qatiifadahan iyo waxaan ima olin masaajidkii nebigu cariish buu iska ahaa caleentan timirta ka samaysan guduhuna ciid yahay dabeetana dadku markay doonaan iyagoo kabahooda sitay la soo geli jireen masaajidka iyagoo kabahooda sitana way iska tukan jireen nebiguna wuxuu u sheegay kabihiinu haddii aad dabadda kusoo marteen dhulka ku xoqo unoo ciiddaasaa idin daahirinaysa nebiga salaad galay saxaabadiina way ka daba gashay ka daba xidhatay kabahoodiina waa xidhan yihin nebi maxamedna kabihiisii buu xidhan yahay calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna kabaheedii bay xidhantay salaaddii bartanka markay marayso ayuu nebigu labadii kabood bixiyey saxaabaduna iyagoo salaada ku jira ayay iyaguna labadii kabood iska bixiyeen wala salaaddii lagama bixin nebigu isagoo salaaddii ku jiru kabaa bixiyey saxaabadiina iyagoo salaada ku jiray kabihii bixiyeen markuu nebigu salaada dhammaystay ayuu wuxuu yidhi waxaan arkay idinkoo kabaha iska bixiyeen maa xamalakum calaa ilqaa'ikum maxaa idinku xambaaray inaad tuurtaan nicaal kabihiina inaad tuurtaan maxaa kaba isaga bixiseen ayuu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen waxaanu aragnay adigoo kabaha iska bixiyey dee annana waa iska bixinay markaa u fiirso saxaabada dhaqankooda wuxuu joogay inaanay nebiga su-aal calayhi salaatu wasalaam su-aal weydiin maxaad kabaa u bixisay inaan la odhan inaan la odhan waba horta kabaheenaan iska gashanaan hadhow baynu weydiin doonaa bal hadda wuxuu kabaha isaga bixiyey bimujarad ay arkeen inuu kabaha bixiyey waxay u arkaan nebi maxamed oo lagu dayday in lagu liibaanayo nebi maxamed oo lagu dayday in lagu liibaanayo calayhi salaatu wasalaam inaguse maca iimaanina billahi wa birasuulih waxaa la isweydiinayaa war haddaynu diinta qaadana armaynu armay dowladnimadeenu soco weydaa armaa waxa kale nagu dhacana yacni waxaad yaqiinsanaysaa shaki aan afka laga lahayn inuu jiro oo laga shaki qabo dhaqaalaha haddii islaamka lagu dabqo armaa la kacaayo waxba socon waayaan midhan cilmaaniyiinoo si cad u yidhaahdaa waa jiraan dad badanina waa aamusaye waxaad se moodaa in shakigu jiro haddaynu siyaasadda ku dhaqanno islaamka armaynu guulaysan weynaa haddaynu waxaan ku dhaqno arma shakigu ku jiro saxaabaduna kabuu iska bixiyey isagoo salaad tukanaya iyana kabaa iska bixiye markuu weydiiyey maxaa kabaa isaga bixiseenna waxay dhahdeen waxaanu aragnay adigoo kabaha iska bixiyey annana waa iska bixinay nebigu kuma odhanin markaa oo maxay ii weydiin weydeen iyo maxaa kan u yeeli weydeen ee inay ku daydaan wuu u qiray laakiin wuxuu u sheegay sababtii uu isagu kaba isaga bixiyey wuxuu yidhi aniga jibriil baa ii yimi isagoo salaada ku jira nebiga loo soo waxyooda waxaanu ii sheegay kabahaygu inay qadar leeyihin yacni najas wax xun kabahayga in najaasa ku taalluu ii sheegay sidaa awgeed baan isaga bixiyey salaada adigoo ku jira haddaad ogaato xumaamadaadu inay najaas leedahay waa la iska tuuraa salaadaada lagama baxee ama kabtaadu najaas leedahay waa la iska bixiyaa saasaa lai sheegay buu yidhi markaasuu wuxuu u tilmaamay sida ay yeelayaan haddii midkiinuu masaajidka soo galo buu nebigu yidhi ha eega labadiisa kabood in wax ku yaalin iyo inaanay ku olin haddii aanay haddaad wax ku aragto dhulka ku masax buu nebigu yidhi oo dabeetana ku tuko yani kabaha waxaa wixii hoosta kaga dhega waxaa daahir u ah in ciidda lagu masaxo lama maydho dee kabta xaggeeda hoose ee in ciidda inta lagu masaxo lagu tukado taa macnaheedu maaha dee masaajidan la nadiifiyey ee kaarbadka ee la maydhayo dadkaba islii kala timaada inaad tidhahda waan ku tukanaya ma aha ee waxaynu ka warramaynaa dhulkaa ciidda haddaad ku tukanayso iska bannaan
inaanad kabtaada inaad ku tukan karto haddii aada masaxato. xadiidka imaam abu daawuud iyo daarimiba waa wariyeen, sheekh alalbaanina saxiix buu ku tilmaamaya. dhibta taalla waxay tahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam muslimiin badani ku dayashadiisii way ka tageen. laba mid uun, inay jaahiliinba ka yihiin, diintaba inuu jaahil ka yihi, ama dee dadkaa shakigu soo gaadhay inay yihiin. taa waxaa ka sii daran gaalka wixii manfac lahaa lagagama dayane wixii aan manfac lahayn baa lagaga dayda inta ugu badan. maxaan uga dan leeyahay? gaaladu waxyaaba la ogolyahay in la kala qaataa jiro bini aadamka oo dhami wadaago, oo muslimiintii horeba ay ka qaateen, persian iyo romans iyo cid kasta ay ka qaateen, iyo waxyaaba aan la ogolayn in la kala qaato. waxaa la ogolyahay in la kala qaato waxaa ka mid a waxyaabaha kan manaaficdan dunawiga, yacni maalan technologygan. laakiin waxa weeyaan waxa manfaca lihi waqti iyo juhdi iyo sabr iyo aqoon bay u baahan yihin. laakiin dadku inta badan muxuu kaga daydaa waxaan manfac lahayn, timahoo la xiirxiira iyo dhafaradoo la caddaysta iyo maryahoo la jeexjeexa iyo waxaan aakhiriya adduuntoona wax tarin. dhalinteennu ama dadkeennu waxa aynu reer galbeed kaga dayanaa waa maxay? hadday kaga dayan lahayn sida dayuuradaha loo sameeyo iyo sida madaafiicda loo rakibtay iyo sida rag laysaga celiyo, dee waxaynu odhan lahay waxba soo kordhisay, ku dayasho macna samaynaysana way noqon lahay. laakiin haddii waxa lagaga dayanayaa uu noqdo maryaha la xidhanayaa noocay u ekaadeen, imka masaajidda muslimiintaad soo gelaysaa, qofka kaa horeeyo qaawo baad arkaysaa sujuudsan, waayo maraduu sito ayaa maro faranji loogu talagalayoo dabada hoosteeda ka xidhanta. nin salaad tukanayo cawradiisi muuqataad arkaysaa, salaadna wuu ku jiraa. mid muslim oo dhaforada xiirtay, qasac sameeyey, timaa badhna muldhiyey, badhna soo daayey. idan waxa aynu kaga dayanoo dhami akaruhu waa wixii layna yidhi ha kaga dayanina. wixii in uun suurtoobi lahaa in laga soo qaatana maynan ka soo qaadanin. ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu markaa inoogu tilmaamay laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswaة xasana. maxaynu ugu dayan weynay? waxaynu ugu dayan weynay cid gaara baa la yidhi baa nebi maxamed uswa xasana ugu sugantay. waa ayo? liman kana yarju اllaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira. waa kuwa ku dayan kara nebi maxamed. kow, liman kaana yarju llah, kuwa ilaahay rajaynaya, ilaahay rumaysan, liqaagiisa rajaynaya, ilaahay markuu la kulmo wuxuu odhan doono ka fekeraya, ilaahay iyo weynidiisa iyo cadamadiisa kuwa garanayo, rabbi rajaynaya, rabbi iyo xikmaddiisa garanaya, og ilaahay dunida tani inay isaga gacantiisa ku jirto. sifada labaadee la siiyeyna waa maxay? waa aakhiro kuwa yaro rajaynaya. nebi maxamed ariiqiisu dadku u fududya raacaya waa dad ilaahay rumeeyey, aakhirana agtooda ku weynti. nolosheenna intay aakhira ku weynti, intay se adduunku ku wenyay. dhan kale aan ka eegno, imse saacadood baynu dunida balaan garaynaa, imse saacadood baynu si aakhiro balaaninkeeda ku jirnaa. odayga caruur dhale wuxuu yidhaahdaa caruurta iskuul ka saar, jaamacad ka saar, waxaas ha noqdo, ha guursado, ha shaqo tago, waxaasoo dhammi waa adduunka balaankiisii.
intee baad balaangaraysaa ilmahani aakhiro siduu u badbaadi lahaa waxaad balaangaraysaa tijaaradaada sanadka waxaad qaban doonto ka dambeeya dhaqaalo markuu soo galo si aad yeeli doonto inta waxa aad samayn doonto waxaad balaangaraysaa inta jaamacadooda aad ka bixi doonto waxaasoo dhami waa umuur dunawiya taa iyo waxaad si dhinac dhigtaa aakhira inta ay kuugu jirto qiimaynteedu imse saacadood baad ka fakartaa imse saacadood baad gelisaa aakhiro dee ninkeena ugu fiicani waa ninka 5 salaadood oo jamca tukaday waxoogaa wardiyana ku daray marka la isku wada daro waa 1 saac wardigaaga iyo salaadaada iyo waxaad iyo dhan markaad isku darto inta kale adduun baad u shaqaynaysaa qur-aankana haddaad eegto waxaa laga yaabaa safxa fii kitaabi illaahi aan labadaa mas'ale ku oolin inaanay jirin ama alle iyo sifaadkiisa iyo weynidiisa ka warramaysa ama qiyaamo iyo janno iyo naar iyo siraad iyo cadaab iyo wixii la halmaala ka warramaya safxa qur-aanka ka mid oo inta la rogo aan labadaa mid un wax kaga ooline waxaa laga yaabaa inaanay jirin 600 صفحة تمعنى هذه وحويان انتو قرآنكو أهمية سيئة مسألة إنه الله هي صفات كيسا كورمه هي عظمة ديس هي ويلي ديس هي آيات كيسا انتو سي أهمية سيئة آخرية مآل كدبينو كورمه وانت غبضا إذن ضدك انت سراديسو أيها أقوى النبي محمد كضيانيا صفة الصدحات اللي سينا ومحي وذكر الله كثيرا أي وذكر الله ذكرا كثيرا إلهينا حصى إن بدن باليري إلهي حس كيس أنا عرب كيس كإنجاجين ذكر هو عبادة قرى أن وقت لهين أن هيئة لهين يعني صفة قال الله هيدا وقت كستاد سمين كرتو داد ويسقبتي هداد شرابة لدي هداد عادي تهي هداد طاهر تهي هداد سوق مريسو يا هداد سلاد كتشرتي هداد شيفتو وعبادة سكة استبى الله سمين كرو dadka se hadda inta badan waxay kaga soo hadhay salaadaha dabadooda uu ninkii ka gaadhsiin kara salaadaha dabadooda uu ninkii ka gaadhsiin kara laakiin waqti kale cid adkaar samaysaa waa wax iska yar ilaahay markaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dayafsho fiican ay ugu sugan tahay ciddii saddexdaas sifo leh hadday saddexdan sifo agteenna ku bataan oo ku weynaadaanna ku dayashada nebi maxamed way fududaanaysaa calayhi salaatu wasalaam hadday saddexdan sifo agteenna ku yar tahayna dee iimaankao dhan baa daciifaya ku dayashadoo dhammina way yaraanaysaa saxaabadiina waxaad garanaysaa siday u rumaysnaayeen wax kasta oo nebiga ka yimi siday u rumaynayeen abibakar ayaa maalintii markii nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey alisra walmicraaj beyt almaqdis la geeyey haddana ilaahay samada qabadsiiyey ee la soo celiyey ee uu quraysh u sheegay inuu xalay beyt almaqdis tegey ayay quraysho ku jees-jeestay waaba la isugu yeedhay balkaalaya maantana ninkii wuxuu sheegayo beyt almaqdis iyo maka iyaga safaradoodu bil bay sii socdaan ninkani meeshii aynu bisha u socon jirnay buu wuxuu leeyahay xalay baan intaan tegey haddana ka soo noqday warbal isu kaalaya ninkii wuxuu ku hadlayo markaa nebiga waxaa la rabay in lagu jees-jeeso layskumaba warramayo cirkaa loo kaxeeyeyba iyadu talada kuma jirto waxa muranku ka taagan yahay waxa weeyaan maka ilaa iyo beyt almaqdis baa muran ka taagan yahay ilaahayna waxaynu leenahay maka ilaa beyt almaqdis waxa loo kaxeeyey inay u noqoto sababtay ku rumaysan lahaayeen inuu sabadana loo kaxayn karayo haddii tan ay tani waa
reasonkii ama aayadii ku tusinaysay ilaaha intanba dheelmiyey inuu inta kalena intan guuraysiiyey inuu inta kalena dheelmin karo. abibakar bay u yimaadeen waxay dhahay saaxiibkaa wuxuu maanta sheegay maogti muxuu sheegay buu yidhi wuxuu yidhi xalaan guureeyo waxaan tegey bayt ilmaqdis dabeetana waa laysoo celiyo haddana way kan abibakar isagoon wax kale sheegin wuxuu ku yidhi lain qaala dalika laqad sadaq warkana aa sheegaysaan hadduu isagu yidhi hadday nebi maxamed afkiisa ka soo baxday run buu sheegay buu yidhi waxay ku yidhaahdeen aw tusadiquhu anahu dahaba leyla ilaa bayt ilmaqdis wa jaa qabla an yusbix ma waxaad rumaynaysaa intuu xalayta qabtay bayt ilmaqdis inuu haddana yimi intaa waagu baryin makaasaad rumaynaysaa qaala nacam haa buu yidhi haa waan rumaynaya waayo buu yidhi inii la usadiquhu bima huwa abcadu min dalik tan wax ka fog baan ka rumeeyaa buu yidhi samada in gelin horiyo gelin dambaba lagala soo xidhiidhaan rumeeyaaye ma bayt ilmaqdis baan rumayn waayayaa buu leeyahy mustadrak alxaakim bay qisada ku aroortay culamaa ilxadiidna waa saxiix yeelaan sheekh alalbaanina saxiixyada kusoo aroorinay waxaan uga dan leeyahay saxaabadu xadkaasay yaqiintoodu gaadhsiisnayd wax kasta uu nebigu yidhi inuu run tahay wax kasta uu yidhi in lagu liibaanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam dee waa ognay inay sii itixaameen dabeetana imtixaankoodii oo dhan ilaahay uu daaqad u furay sida tv-ga loo daawado kale inuu u daawaday uuna uga jawaabay waxay weydiiyeen oo dhan nin habeen guuro bayt ilmaqdis ku tagoo ka soo noqday dee muu garteen albaabada masaajidka iyo dhanku u kala jeeda iyo istriidyadeed iyo waxeeda muu garteen laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala u furo waxay su-aal weydiiyeen oo dhan buu uga jawaabay waxaan uga dan leenahay sidqu liimaan baa keensanayey inay nebiga ku daydaan waxaa kaaga filan xadiidkii khusayma saxaabigaasi axmed iyo abu daawud iyo qaarkood baanba warinayaan culamadana saxiixa ku yeeshay nebigoo safar ku jira ayaa nin reer miya neef geela ka iibsaday waa lagu heshiiyey heshiiskii markuu dhacay kadib ayuu wuxuu yidhi lacagta waxaan kaa siinayaa magaalada madiina sidii baa lagu soo dhaqaaqay beeci dhac laakiin waxaa mu-ajal uuna ah lacagtiisii la siinayay marka magaalada la tago in la siiyo safarkiiyo lagu jiro saxaabada dee may wada ogeyn ninkan inuu neefka ka iibsaday nebigu rag kale uu yimi oo gorgoriyey ninkii reer miyiga ah wuxuu yidhi lacagtii lacag ka fiican baabad ku helaysaa gorgoradii dambuu haddana galay wuxuu arkay in qoladani u kordhinayso iyaguna ma oga in nebigu ka iibsaday nebigu u yimi wuxuu yidhi neefka ma iga iibsanaysaa mise waan iibiyaa buu leeyay markaa ila meel kalu arko lacag kale la sheegay ma iibsanaysaa mise waan iibiyaa nebigu wuxuu ku yihi miyaanan kaa iibsan soo inagii kala iibsanay waxba maad iibsan buu yidhi iyo kuu markhaatiya markhaati keenso saxaabadanina lamay joogin markuu nebigu ninkan wax ka iibsanayay iyadoo hadalkii taagan yahay ayuu saxaabiga kane soo gala maxaa jira baa la yidho waxay idhahdeen ninkii reer miyiga ah buu nebigu leeyahay neefkan kaa iibsaday isna wuxuu leeyahy igamaad iibsane markhaati keenso khusayma wuxuu yidhi anaa markhaati ah haddaa loo sheegayay in nebigu ka iibsaday deetana wuxuu yidhi anaa markhaati ah nebigu wuxuu ku yidhi khusaymata bnu thaabit oo maxaad ku markhaati furi doontaa waxaan markhaati ka ahay buu yidhi ilaahay rasuulkiisa inaad iibsatay neefkan ka iibsatay ninkaa inaad ka iibsatay se kayfa tashhad baa saad u markhaati furaysaa waxaan ku markhaati furayaa buu yidhi waxaan rumaysta oo maalin walba kaa rumaystaa samada inta war kaaga yimaado inaad noo sheegto ma geedka dhabarkiisa warkaad ka sheegtay baan rumaysan waayayaa buu leeyahy geedka dhabarkiisa warkii aad iiga sheegtay ee inaad iibsato adigu aada sheegayso miyaan rumaysan waayaya anigoo rumaysan in samada inta warku kaaga yimaado aada sheegto deetana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam
khusaymata bnu thaabit ninkuu markhaati fura waa laga markhaati arrinkiisu yani yakfii maxaan uga dan leenahay yaqiintu hadday korodho oo dadku ilaahay iyo rasuulkiisa si dhaba u rumeeyaan oo aad ka mid noqoto liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira waxa xaqiiqa in nebi maxamed warkiisa aanad waxba ka soo celinaynin waxa xaqiiqa qur-aanku inuu laabteenna degayo xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa xaqiiqa wax yar iyo wax weynba inaynu kaga dayanno waxaa cajab qabta muslimka maanta jooga inuu yidhaahdo weysadana waan kaga dayanaya musqusha sida loo galana waan kaga dayanaya oo musqusha markaad galaysa bidixtaa la horreysiya dhowna midigtaa lasoo horreysiya saasaa la isaga intaana waan kaga dayanaya nolosha sida loo maamulana kaga dayan maayo ama caadaadkii iyo aabbayaashaya iyo hidiya dhaqanka iyo xeerkayagii annaga iyo reeraan noo yaalay baan ku dhaqmaynaa ama faranjiga wixii ka yimi gaalka wixii ka yimi ayaanu ku dhaqmaynaa hadday dhaqaalata iyo hadday siyaasata iyo hadday bulshata iyo hadday wax kala tahayba laakiin marka masaajidka la gelaya ubaanu nebi maxamed raacaynaa waa waxaada fool waxaa warkay kusoo koobayaa waxaan akrinaya waa aaya min kitaab illaahi faqad ku soo degtay masale aan cibaadaadkaba ku saabsisnayn aayaddan waxaynu nihi dagaalkaa markii laga soo baxay bay soo degaysa kama warramayso salaad iyo cibaado iyo zake iyo kuwa kale ee waxay ka warramaysaa xaqiiq ahaana ugu horeeya fii sabrihi wa musaabaratihi wa jihaadihi sidii uu sabray uu jihaatamay uu islaamka ugu quweeyey uu shujaac u ah inaynu kaga dayano idan nebiga oo dhan baa ilaahay wuxuyna yidhi lama odhanin markaa fii shujaacatihi kaga dayda ama fii jur'atihi ama fii jihaadihi waxaa la yidhi fii rasuuli illah ilaahay rasuulkiisa dhan kasta oo laga eego wax yar iyo wax weynba kaga dayda yaqiintaa hadday qalbiga gasho oo muslimku si dhaba uu u qaato wax walba waxaynu odhan doonaa ilaah iyo rasuulkiisu maxay ka sheegeen dabeetana nolosha waa fududaanaysa nolosha adduunna waa fududaanaysaa ta akhirana waa fududaanaysaa haddaynu nebi maxamed raaci weynana nolosha adduunyana waa adkaan doontaa oo sidaa maanta loo tunjeleecsaday muslime meel walba uu ugu aradan yahay ee ugu liita buu ahaan doonaa aakhirana manaa ma burro waxa ka sii horeeya hadday tanba wax ku waayeen sala allahuma calaa nabiyina muxamadi wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin